بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كلن كان عاوة وحنو بلنصنهاي محاضرة عنوان كيدو يهي المنهج الصحيح في نصرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. طبطة توصن السحدة النبي صلى الله عليه وسلم لوغوه اليوم، يعني طريق السحدة النبي صلى الله عليه وسلم أدوغوه اللي انكرته. طبعا وادقران إنسان صوبتك أنتي وقتك وحد قذبك يأفلقات ده يميلك قدعة النبي جينا قصة صلوات ربي والسلام عليه ويان دنبه عادي يستين سوف هذا يمان قابك يوحما قرتك رجل بيتك. بهذه المناسبة أيام مركة واحد مدائني لقى مرمان تهي إن روح مسلم كاللوت المامو جيدك شراعة إنه ينوع قشه أي نوحيابا نوعاسو كلا كغير جوابي كرنا فقه جيدي يفهم كده سي أنن إنك لفتنا دا أخل ضمين وإنن أقلين خلط مروا البنا وحلقة مرمان وروح مسلم كاه هدو عريسين يهي هدو حناقسين يهي هدو مروكسين يهي هدي للظلمية هدو فرحسين يهي حالد والباء إنه دينتي سوصونه وتلاوة قادة إنه قطه تلاوة قصة ليسان شريعة دين محمد لقو سودتي صلوات ربي وسلم عليه إيسان نقنين واحد قصة ليسان لابلكع iyo nooc iska ficil aan shariicada sal ku lahayn oo khilaafsan marka ay dhibkay keeni kartaa ka badan waxa ay kordhin karto. taariikhda markii dib loo raaco oo raac lagu sameeyo in ilaahay tabaaraka wa tacaala rusushiisa iyo nabiyadiisa la caayo la aflagaadeeyo waxaad bilowday ma taariikh dheer bay leedahay. waxa la dhigi karaa waxay bilaabatay markuu bilowday as-siraac bayna al-haqq wal-baatil, looltanka iyo lagatanka xaqa iyo baatilka ka dhaxeeya. maalinkii ay bilowday looltankaas ayaa waxaa bilowday cayda iyo aflagaadada rususha iyo anbiyada loo geysanay. xaqa oo ay matalayeen rususha iyo nabiyada iyo atbaacdooda, iyo baatilka oo ay matalayeen dadkii iyaga ka soo horjeeday. anbiyada iyo rususha mar walba iyaga wuxuu ahaa mowqifkoodu xujo, daliil iyo burhaan iyo xujo iyo hadal quruxsan iyo inay dadka qanciyaan oo ilaahay fariintiisa iyo risaalada gaarsiiyaan. dhanka ka soo horjeedana waxa dabeecad u ahayd inuu caytamo, aflagaadeeyo, ayaga shaqo ka dhigto. bal quraanka kariimka akhriya qasaska iyo qisooyinka markaad akhrido quraanku taariikhda uu ka sheekaynayo iyo wixii dhaxmaray rususha iyo dadkii loo diray iyo aqwaamtoodii waxaad arkaysaa rusushuna waa miisaamanta oo hadaf iyo target bay leeyihiin oo waxoodu waa xujo iyo burhaan. kuwa ka soo horjeedana warkoodu waa cantara baqash iyo caywa. marka dabeecadu saas iska soo ahay bal iskaba dhaafay sida quraanka kariimku inoo sheegay inta cay iyo aflagaada la dhaafay baa ilaahay rusushiisii qaar ka mida la laayay oo la dilay.
nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo rususha ilaahay soo diray ugu dambeeyey khatimay isaga ayaa wuxuu ahaa qaybta ugu badan ayuu kala kulmay dhibaatada dadkii ka soo horjeeday khaasatan reerkii uu ka dhashay Quraysheed gaaladii kale Carbeed ummadihii kale dhibaato aan yarayn oo noocyo badan leh buu nabigu kala kulmay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa kamid marka dhibaatooyinka uu kala kulmay aflagaadadaas ka mid ah inay nabiga caayaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inay ku xadgudbaan quraanku wuxuu inoo sheegay inay nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yiraahdeen waa saaxir falfalow ah waa saaxir waa ay wuxuu inoo sheegay inay yiraahdeen waa kaahinku waa wadaad jinka la shaqeysta waay jibanku saaxiib leeyahay jibanku la shaqeystaayo kuwa wax sheega waay bal quraanku wuxuu inoo sheegay inay nabiga ku yiraahdeen sallallahu alayhi wasallam waa majnuun وابوالن يهم ممير قبو إلهي ركاسي قاده وحينو شيغي إن النبي صلى الله عليه وسلم كو أفلقاديون ويداهدين وكذاب مفترع وبين على إلهي كو بين أبو رنح وحينو شيغي إن النبي صلى الله عليه وسلم عاين كو يداهدين وصاحب أساطير الأولين كتركتنتي بينه ومديه ورشاكدي كتركتنتها وصاؤر رسد خرافات بوطا النبي صلى الله عليه وسلم si walba ay aflagaado waxay u reebteen ma jirin bal iska badhaaf sidoo quraanku inoo sheegay waxay isku dayeen inay dilaan oo khaarijiyaan fi suurati al-anfal Allah waa inoo sheegay tabaaraka wa ta'ala inay quraysh isku dayday inay nabiga dilaan salawaatu rabbi wasallam ka batakhalusaan salawaatu rabbi wasallam marka waxaan u baahanahay oo ujeedadu tahay inaynu ogaano ma aha in rususha iyo kutubta ilaahay iyo alla laftiisa tabaaraka wa taala in la aflagaadeeyo ma aha wax hadda bilowday ma waa taariikh dheer bay leedahay ilaa xaq iyo baatilka looltankoodii soo bilowdayba arintani way jirtay marka wax cusub ma aha halka marka waxa inooga soo baxay sheegani waa jiri jiray waana soo jiray mar hadduu dhici jiray qaabkee loola dhaqmi jiray fiqigeedan marka helayna jidkee lagu daaweyn jiray fiqigeedii iyo yaani wax way dariiqeedii baynu marka helayna rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi rabbigi tabaaraka wa taala wuxuu u sheegay jeeska iyo aflagaadada iyo waxay gaaladu sheegayaan inuu ilaahay ka kaafiyay waxna ayna yeelayeen wuxuu rabbi yiri tabaaraka wa taala فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وحلقوا أمري لجهر بنبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بناك ولا بح بالي قرصودي ده كسر وحلقوا أمري بناك ولا بح عديسو لجهر وأعرض عن المشركين كون قالدنا إسقى جيسو عيدودي أفلقادودي وحشيك قوضة هضنين إن إسقى جيسو إنا كفيناك أنك كافيني باليد المستهزئين كو جيسيا كو عاية كو أفلقادين كو جيسيا أنك كافيني الذين يجعلون مع الله إلها آخر الله تبارك وتعالى لتشيرن كيسا كو العابدو أو كله كو الصمين يود فسوف يعلمون ويؤغان دونان waxa ku dhacaw wayna ogaadeen oo natiijadeedii waata aynu ogaanayba waxa ku dhacay jabka iyo meeshay ku dambeeyay marka ilaahay tabaaraka wa taala ba kaafiyay nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ayad kale fi suurati al-baqara ku jirta rabbi waa ka yiri fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'u al-alim ilaahay ba kaaga filan baa ilaahay ba ka kaafiyay وقضب الله تبارك وتعالى وحوق كافيه سيابة فربضا وحد سويدين كرتا نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة
انت قيامته كإيمانيس وأعظم شخصية عرفته التاريخ شخصية تاريخ الصومر تكي ويناوه دين أولا وسيد ولد آدم سؤال بالمركز ويدين كرتا قال حن وبوري قبعة ووسخيسان النجس عيدي سمحي يلي كرتاوه حقيقة قاري كرتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحا أمانيا وأمانتي سأتاغن الله تبارك وتعالى سماواتك يدللك لسي مخلوقات كردنا أبوري إساقاسا أمانيا ملائكة يا أخيارتي يا أضوامضة إنتو إلهي يقول شعليه فهد يا هبين أمانتي سي الدعادي سأتاغن سو الله مدين تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يا ملائكتي سو وحي كصلنا يا النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه إذنك مؤمنين تأهاونا كنا صليا سلامنا الله بالنبي محمد كصلنا يا محل قوضة سيدا أوليه أبو العالية الرياح وحوليه بمعنى ملأ السريع كربوا إلهي كو أمانة يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمانتي سا إلهي هيا ورنين إلهي أمانة يا قال صور حنا أوصى صوري هذا الحقيقة كجاري أمانتي سا إلهي أوتاجني الله مركل لجي ما دام ملائكتي با أمانتي سا الدعاء سا أوتاجن مركل لجي ما دام ملائكته ومدي سي أو مليارات أتربضن بأمانتي سي وحيو تاغيهين دعاديس دولك كوركيسا ما جوغو waxaan u jeedaa ma soo marin mana jiro taariikh ruux maalinkii inta soo goor ay amaanayaan oo u ducaynayaan 1 bilyan ka badan muslimiinta adduunka korkiisa jooga waxa la yiraahdaa waa bilyan iyo badwa milyaar oo niswa كما سوقات نسكاسي 500 مليون كما سوقات إنه تكنين أنت إنه تكتا كما سوقات إنه يهين يا هل بليون إنه تكذا ما أنت إمسا قرب إنه محمد كوساليا يا شنت الصلاة صوشان ما إمسا لبعت حيال يا أفر التحيات كده حنا قدر اللي نصلي بقوله زو وإمس تضوى قروة صوما ما هو سيدات قروة صوما سيدات قروة ويران بمد والبنبي محمد صلى الله عليه وسلم كصلينا يا مالك يا هبينك ودعينا يا أمانة يا حجبوا تاريخ ذا كجيران النوعاس يا مصامر مسجران ما تشرو صوصاص ما تاريخ ذا مصامر سيدا سرادة وحوين يقيمة وين أو كفر ديو قال حن أو وسخيصان أو فلاضي معنى وين أو كفر ديو هذا المشكل يعني وسألته إلى وزن كذي قدر كذا لا ديو بهانت نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه وشخصية ذا السواء الله تبارك وتعالى بوحو سيدو كلام ميلا فربضا وقرآن الكريم كامل كوي وحكا الشيء أي ربي تبارك وتعالى وتواب سيدا أي مدى تفسير كتل ماما يان نين لديه يجري العاص بن وائل أي النبي صلى الله عليه وسلم مركي ويلشي سردنتين إلا ويلشي النبي يقول يرد بيضادنتين أي وحو يلي وروح بها يسكر لي بنا كان وضوقوا أحياء وحبك هاري ماي نين أن ركبك هارين intuu dhimanaya un baa ka laaban magaciisuna waa dhimanaya isagoo dhan xilligaas u dambeys Allah baa u jawaabay tabaaraka wa taala wuxuu yiri inna shani'aka huwa al-abtar midka kun nacab isaga daba go'an
ya isaga khayr iyo wanaag iyo wax walba ka daba go'an wuxuu leeyahay ibn kathir alayhi rahmatullah inna mubghidaka ya muhammad wa mubghida ma ji'ta bihi min al-huda wal-haqq wal-burhan as-sati' wan-nur al-mubin huwa al-abtar al-aqall al-adhall al-munqati' dhikruhu midka liiteen qiimaha lahayn ee xuskiisa iyo sheegidiisuba ay go'i doonto iyo wuxuu wato waa isaga saasayna noqotayo kun iyo dhowr boqol oo sano laga joogaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam maalin amaantiisi xuskiisu ay ka badan tahayna taariikhda ma soo marin laana atbaacdiisa mar walba sii badanaysa Soomaa maanta ugu badan yahay maanta ugu amaan iyo xus iyo salli badan yahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saas taraadid aaway ninkii marka wax ka sheegayay uu daba go'ayaala yaa yaqaan hada Waa'il ibn Aysi wixii caasi wixii la mid ah afar kale saxiixa oo isagana Abdullah ibn Abbas laga warinayo wuxuu leeyahay ninka aayadu ku socoto waa ninkii la dhigi jiray Ka'b ibn Ashraf asagana afarkaas sanad saxiixa buu ku yimid bazaar baa warinaya sida uu leeyahay ibn kathir alayhi rahmatullah oo quraysh buu u tagay markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam yey ku yiraahdeen ninka fallaagaday reerkiisii ka fallaagoobay ba annaga nale muxuu waa ninka fiicna markaas Ka'b ibn Ashraf wuxuu yiri idinka ka khayr badan inna shaniyaka huwa al-abtar isaga ku socotaana ayadana afar Abdullah ibn Abbas oo sanad saxiixa ku yimid baa jira Allah tabaaraka wa ta'ala sidoo kale quraanka kariimka ah nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dadka dhibaya adduunyo aakhira lacnad aakhirana cadaab ihaaneeyo duleeyo u ballan qaaday innal ladina yu'dhuna allaha wa rasulahu la'anahum allahu fid dunya wal aakhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina kuwa allah ya rasuulkiisa dhibaya adduunyo aakhira ilaahi waa lacnaday عذاب إهانية أو دلينا إلهي وأدياريه تبارك وتعالى ربنا تبارك وتعالى وحينوش شيء إنه أتاجيه النبي الدفاع عيسى صلوات ربي وسلام عليه العددي سورة التحريم باللوج هذا لقى جور رمي وحاسس كالنبي قار كم إذا كسب سنة خاصهان حفصة عائشة حوجا أمركي خلتكي قالين لجواني الله تبارك وتعالى هذا الهنشباد أو أذك بوجهه آيات ذكر بلاوة إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما ما قدم به وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير ولنت لستبرد يقفرس وعلى إدبينيا دمرك النبي صلى الله عليه وسلم قار كم إذا وخلط قلي الله وحوري وإن تظاهر عليه هذا النبي محمد السجود تكتان والسكها شتان تسوق ما طلعان به ما قرب لعان بعد مودين الله وحوري تبارك وتعالى فإن الله هو مولاه إلهي بان ناصر كيس اللي رأوه إلينا يا وجبريل نوا وقرب كيس وصالح المؤمنين مؤمنين انت وضف عنا وقرب تاغنيه والملائكة ملائكتين بعد ذلك انت صورا كذب ظهير أيضا وهي لنيسا وفيرس ولنت الاستدوار وفيرس الله جبريل وملائكتي سيقوني اللوغة مقعاب يا مؤمنين انت وضف عن صالحين يا ملائكتي كلو لقد بكياني انت ساني محمد قرب تاغن بالله صلوات ربي وسلام عليه صوميس ساقا يقا تاغن نبي محمد هي الذي صلوات ربي وسلام عليه النصر جيس مركا يعني وحوي ربي تبارك وتعالى وقدر يا نبي جينا صلوات ربي وسلام عليه إلا لبنا ربي تبارك وتعالى واقف صدي أسجل الدفاعي صلوات تبارك وتعالى حديث النبي حديث القدس في صحيح البخاري سيدو كليتا يسوق ليون الله تبارك وتعالى ويري حديث القدس من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ولي أولياء إذا كم إذا روحي لا الله يتبع دجال بان كوي إعلامي وحنا وجيسين يا إن الله دجال لما يو وأعظم الأولياء وأفضل الأولياء على الإطلاق محمد صلوات ربي وسلام عليه أولياء إلهي سجى أوين السجى رمضح هو صلوات ربي وسلام عليه سيداس دراد نينك الله دجال لما ي إلهي بالدجال الله قلي مركات دم حمدي زميش وقلي لها السجى قرنا يوم نبينا صلوات ربي وسلام عليه انت كذب
wax dhibaato ah oo ka soo gaaraysa edab darrada iyo afxumada lagula kacayo ma jirto qabrigiisu ku jira salawaatu rabbi wasalaamu calayh ma ku dhibaatoonaya ma wax xanuuna ka gaadhay ma wax dhibaataa ka gaadhay kalla bal waxaan dhihi karnaa rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh cidda ay ka hadlayaan ee caayayaan isagiiba ma aha maba aha nebi maxamed sal alla alay wasalam laanna sawirkiisii iyo dhaqankiisii ma aha isagiioo meesha taaganna ma aha waxay meesha ku qorqoreen ee sawireenna ma aha suuradiisiina ma aha qaabkiisiina ma aha marka sawir beenaad intay samaysteen unbay uun dagaal beena ku jiraan mooye nebi maxamed sal alla alay wasalam haba yaraatee meesha kuma jiro wax dhibana kama soo gaadhayo u fiirso rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadda ka hor isagoo nool bay gaaladu caayeen gaalada ayaa caayay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxay aad u dhibsadeen cayda nebiga iyo caayaysa gaaladu markaasaa rasuulku wuxu uhi sal alla alay waslam war anima caayayaane nin kale caayayaane iska dhaaf wuhi waxba ha isku dhibina xadiidka fi saxiix albukhaari buu ku yaallaa min xadiid abi hurayra rasuulku wuxu uhi sal alla alay waslam alaa tacjabuuna kayfa yasrifu allahu canii shatma qurayshin walacnahum yashtimuuna mudammaman wayalcanuuna mudammaman wa ana muxamed miyadaan la yaabayn bu nebi sal alla alay wasalam sida ilaahay uu iiga leexinayo cayda quraysh iyo lacnadeeda waxay caayayaan nin la yidhaahdo mudammam oo waxay lacnadayaan mudammam anuguna mudammam layma dhahe maxamed baa lay dhahaa buuri mudammamku muxuu yahay bimacnaa magaca nebiga ammaan xambaarsan muxamed waa kii la mahadiyey waa ammaanan yahay soo maa magacaasay marka intay u quuri waayeen ammaanta xambaarsan bay magac cagsigiisa opposite u ah bay u isticmaaleen oo ah mudammam mudammam waa ninka la caayay waa ninka la caayay markaasay waxay isticmaalayaan iyagoo isaga u jeeda magaca mudammam ah waxay leeyihiin maalan facala allahu bimudammam kada mudammam ilaahay saa ku sameeyo wa mudammam kada wa kada mudammam waa sidaa iyo sidaa waryaad ka hadlaysaan ayagu yay u jeedaan nebigay u jeedaan laakiin nebi maxamed mudammam baa la dhahaa ilaahay baa carabkoodii leexiyey oo magac kale u leexiyey sidaas daraaddeed ninkay caayayaan mudammam baa la dhahaa nebi maxamedna maxamed baa la dhahaa axmed iyo maxamed baa la dhahaa ilaahay baa halkaa u duway tanina sidoo kale weeyo sawiradani iyo rusuumaadkani iyo karikateerkan la sameeyey nebi maxamed sawirkiisii maaha soo saas ma sawir kaley sameeyeen markaasay magac ku dhajiyeen markaasay asagii la dagaalamayaan ayib ma maxamed baa sidan ahaa sawirkiisi maa sidan u eka maya hadduusan u ekayn adeer sawir beenood samaysateen unbaad wax la dhacaysaan mooye nebi maxamed maba aha sifaadkiisii maaha sawirkiisii maaha qaabkan uma oolin dhaqankiisii sidan ma ahayn meel cidlaabaad marka yaad hardamaysaan meel cidlaabaad garaacaysaan wahadi min xikmat illahi tabaaraka wa tacala waxaa macnaha xoojinaya nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka abu hurayra kadalika fi saxiixi albukhaari wa muslim wuxuu nebigu uri sal alla alay waslam man ra'aanii fi lmanaam fasayaraanii fi lyaqda ruuxii hurdo igu arka oo igu riyooda soo jeed buu igu arki doonaa walaa yatamaalu shaytaanu bi shaytaanku aniga isuma soo ekaysiiyo sawirkaygoo kale shaytaan ma qaadan karo الإمام البخاري عليه رحمة الله حديث كان مركو وريي وحو كوريي ابن سيرين تعليقا وحو كغكيني محمد ابن سيرين تابعي إنو يري أي إذا رآه في صورته قرمات نبي محمد إناد كريوتي أو رياضة كو أركتي قرمات لديه ومركات تصور كيسي أدونك مركو تشوغي أولا هانشري صور كي نينو إيك مركات أركتو أذكر كيسوا فافاسن بوحكي ابن حجر سند كيسو كان يسقى موصول حماد بن زيد بالجورنا يوحي محمد بن سيرين وحو أهانتر إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم
محمد بن سيرين تابعي فوحو أهان جري هدون نين u yimaado oo ku yiraahdo nabigi baan arkay xalay ku riyo wuxuu dhigi jiray sifli alladhi ra'aytahu warbal sawirkaad aragtay iyo cidaad ku riyootay bal ii sifee saweka طيب فإن وصف له صفة لا يعرفها قال لم تره صفة سن أقون جيرون النبي قال له أقون هدو هذا صاص وإكا وحكون يجري أغير كذا رأيت النبي محمد ما يا مثلا محو هاي وادري يوتي واللغو يمت وحكو يمت مد مدو وقابن يا وفالحن مركز حكو النبي محمد بانه ريو كويت سواحد بعد صوته صراحة النبي محمد بانك ورمى النبي محمد بانك يا ورمى النبي محمد بانك صوته بعيده يعني لو حوي ماذا أركن صفات كيسيكو ماذا أركن مرحبا صفات كيسيكو أركننا أما الشيطان باوحو يسوق سوكا كيسي صور كلو إساسية صور كلمة محمد كما إيماني صلوات ربي وسلام عليه وحسن يسوق كيسين كلمة محوية هاي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم صفديسي يصور كيسي ما قادن كرو لكن إن توقع تصور كله وشيغان كرا وديه كرا محمد بانه وجيدا ذاك لنا حتى إسلام حوجنا يقول ابن حجر عليه رحمة الله حديث كلا أصول صار حاكم وسند كيسو جيد هاي وابن عباس لقى وريني وحوليه هاي نيكلي هذا كليب ابن عباس بانو يمدقول مركز هاي يقول النبي كان أركي صلى الله عليه وسلم كوريون ابن عباس مركز سوري صفه لي ولين كان أركت إيه صفه سوءك مركز واحد شيء يقول ذكرت الحسن بن علي فشبهته به حسن بن علي ويلكي نبي أبوه جواه قبل الصفادي مرة شيء وهذا جو أكان شري نينكاسان شيء مركز هاي يقول حسن بو أكان كان أرك مركز وحول ابن عباس قد رأيته على الله واضح ركتب المرة سمعت على الله هي وتكريت النبي صلى الله عليه وسلم محانو لجيدنا حديث كايو آثار طبعا كورنا وحن كوضنا صور كميشا يالاي هدوسا كي نبي محمد الصفات كي سيلهين من نبي محمد به هي ما أها قالوا أنا مركب بلايا كلا يصور تاني نين بمبوين مدح وحرين هينو بلايا وهو بدار له خربان أو أسجل نبأ أدمود يسمحوها هاي ورني كاس نبي محمد معها صوما نبي محمد معها بلايا كلا تصورتين حقيقة مركب واحد تاين لفهمه أباهني وحوي سيدي قال لي وقت النبي قبل شوكتي بمجي عيسى إلهي أقول لحيه مذمم أقول لحيه باكون ما أنت تشوجنا حقيقة صفات كيس أنت اللي أقول لحيه با وحلول لحيه سورك لو بين مركزي نبي محمد كدقيان صلوات ربي وسلام عليه ساس تراد نبي محمد معها صلوات ربي وسلام عليه لا صفات كيسي ولا سورة دي سيتونا معها تاسي وقرب قدب تحقق نبي جينا صلوات ربي وسلام عليه حد قدب كان لقصة مين أيوه انتو نولا وحي دباتي سوقان مركو لنتي كذب حد قدب كان لقصة مين أيوه درجات كيسا آخرين كرو قاضيسا يا صوت نبي محمد دبا اسم الله ودباتي وقيستا صوت اسم الله الساقة كوده صلوات ربي وسلام عليه الصحابة ديسي علماء دي دعاء دي dadka ilaahay diintiisa u soo adeegay shuhadadii dadka diinta ilaahay u adeegay ilaahay dartii loo dhibayo intay nool yihiin dhibaatada loo geysanayana darajaadkooda kor u qaadaysa aakhiro iyo manziladooda hadday dhinteen wixii dhibay loo geystay aflagaadiy xad gudubana darajaadkooda aakhiro iyo miisaankooda aakhiro galaysa sidaas daraadeed ilaahay shar ma wada abuurine نبينا صلوات ربي والسلام عليه دباتنا كما غاديسو كما حنونسنايا قبريغا wax dhibana ku gaari maayo dhanka kalena ilaahay darajaad sare ayuu ku gaarsiinaya oo ku siinaya xad gudubkan oo khayraadkiisi faraha badnaa bay galaysaa صلوات ربي والسلام عليه laana maxaa loo dhibaya ilaahay dartiba loo dhibaya soo saasba fa innahum la yukadibunaka walakin adh-dhalimin bayat la yajhadun haqqi uu la yimid ba keentay in lagu xad gudbo ilaahay dartiba loo dhibaya sidaas daraadeed dhankaasina oo wuxuu ku iimaanayaa nabigeena xadiiskii salawaatu rabbi wasalaam calayhi uu lahaa ruuxa muslimka ah dhibaata ma gaadho nasab
hammi murug dhaawac xataa qodaxda mudaysaay dambi dhaaf ay u tahay darajana kor baa loogu qaadaya taasina ayadoo aad u khadhaadhax oo aad aan u dhibsanayna nabigeena sallallahu alayhi wasallam xataa magaciisa in la soo qaado xumaan lagu soo qaado oo qalbiga ruuxa muslimka marna uusan ayna ku fududayn haddana maca dalika nabigeena sallallahu alayhi wasallam wax dhiba gaadhi maayo taa macnaheedu ma aha xadgudubka la isku dayayo gaal isku dayayso ha laga aamuso faraha laga qaado ma macnaha laga wado bal waa in la isu taago wixii laga qaban karo in laga qabto waa oo nabigeena sallallahu alayhi wasallam xilligiis ayaa gaalo soo cayday soo aflagaadaysay u soo gabayday iyo raggii saxaabadiisa ahaayee aftahanka ahaayee gabi jiray yiri difaaca u jawaab waa in la difaaco حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فحيل هذا رسولك صلى الله عليه وسلم وحيد أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل قريش وحكا شهقا هجوك وحلي لهذا إن روح للضرم خاصة أبترك هي النصبك روحا هي أبتركي سي أو يدي هي مركي ضرد أي قشو بهجوك لهذا marka quraysh weerar rabo rasuulka sallallahu alayhi wasallam maxay yeelay wuxuu kaga daran yahay in wax laga sheego oo xumaanteedii iyo yaani dhaqan xumadeedii iyo halka laga galo oo afka loola baxo waxay uga daran tahay in leebab iyo eebooyin lagu harqiyo hubka taasa uga daran markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam si arinta loo fuliyo wuxuu u yeeray rag gabyuu lahaan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam oo gabayga ku dagaalama oo suugaanta aad ugu fiican wuxuu u yeeray ninkii la dhigi jiray Abdullah ibn Rawaha markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam uhjuhum nimanka weer afka ku weer waa quraysh fahajahum falam yurdi waduray inta tabartiisa waa gabiyay waa u jawaabay laakiin gabaygiisi nabiga ma raali gelin sallallahu alayhi wasallam waa saluugay meeshuu rabay ma gaarin markaasuu haddana wuxuu u cidiray ninkii la dhigi jiray Kacb ibn Malik sagana gabayaaga ah warbal Kacb u yeedhalay warbaaduna Kacb intaada tuur balay Kacbna intiisii buu dhakasi nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ku qanay waay kadib waxa uu cidiray nabigu sallallahu alayhi wasallam Hassan ibn Thabit shaa'iru rasuulillah sallallahu alayhi wasallam Hassan loo yeedho buu ki ansaariga Hassan markuu soo galay oo nabigu soo galay sallallahu alayhi wasallam أيها حسان وحيري قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم باللسان فري الأديب حسان مركو صوق علي فوحيري هذا أيها وقت جديد لقاري إن أعد درتان وأرنتان أحل سارتان لباحا صينت وراريه isaga iska wad libaaxan saynta waraari hayb kadibna carabkiisu soo saaray markaasuu carabka banaanka intuu soo dhigay ayuu carabka inuu dhaqdhaqaajiyo bilaabay sida sayntii libaax oo kale libaaxu markuu caranayo oo xanaaqsan soo saynta saaka ma siiyo awa carab caranayo marka oo doonayo meel in lagu salido carabku saaka dhiga markaasuu yiri ilaahay waqtigeedii way ninkii la diri lahaana waa aniga markaas wuxuu yiri ilaahayga xaq ugu soo saaray baan ku dhaartay nabi maxamedow walla inaan ku jeexjeexi buu ku googoyn quraysh carabkayga sida haraga loo jeexjeexo loo googooyo kale carabkan ula tagi markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la ta'jal war hasan wa degdeg rukaad fa inna aba bakr a'lamu quraish bi ansabiha wa inna li fihim nasaban حتى يلخص لك نسبي لمن كان قريش ويعني وحويان حسان وعربك ولبحاي يا ام نفسنيو لمن كان نبي كدشي صلى الله عليه وسلم سوما نصبكودي hadii wax laga sheegana de nabiga waa isku nasab iyagu marka walniba baluk hadib meesha khatar ba ku jirtee xogaa laga fiirsaday u baahan tahay bal agta dhig
markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam irshaadiyay wuxuu ku yiri bal waxaad u tagtaa ninka la yiraahdo Abu Bakar wuxuu ahaan jiray yaani nasabatul arab ah arabta ninka ugu yaqaana nasabiyadeedu ah qabaa'isho dhan yaa dhalay reerkee dhalay dhanka hooyo dhanka aabe uu si fiican u yaqaan markaasuu yiri Abu Bakar u tago la tasho nasabka aniga imara si uu gooni kuugu saaro inta kale marka aad arabka ula dhacdo aniga hayga saaro meelan anigu maro oo dhan ha ka leexiyo ilaan xasan waa reer Madiina Sooma Abu Bakar baa reer Makka oo Quraysh kala yaqaana nabigu tiibuu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaam alayhi kadib uu tagayo Abu Bakar buu tagay Xasan markaas wuxuu ku yiri Abu Bakar baa marka uu kala tilmaamay wuxuu u kala sheegay reer Bani Hashim reer Bani Abdul Munaf ilaan aabihi isku meel bay maraan moogta aabaha dilay hala taabto waa isku wada aabe Sooma oo Bani Hashim Abdul Muttalib Bani Hashim Bani Munaf odayaasha hadii la taabto nabigiina waa la taabto Sooma sida gabaygiisu tilmaamay Xasan xagga hooyooyinku ka galay marka Sooma ilaan hooyooyinka lagu kala tagi Sooma hooyooyin nabiga maro oo dhan intii isaga isku hooyada ahaayeen oo dhan uu ka leex intii kale ka hooyada ahaabuu dhankii hooyooyinka ka galay markaasuu carabka la dhacay si fiican uga noolaa sidaas marka nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu ibn wuxuu ku yiri walladhi ba'athaka bil haqqi la asullannaka minhum kama tusallu ash-sha'ratu min al-'ajin ilaahiga xaq ugu soo diraan ku dhaartay adiga waan ka dhaxsiibi buu yiri sida xabada tinta ah looga dhaxsiibo cajiinka qooshka Soomaaliya burka qooshkiisa marka la qoosho xabad tin oo ku dhax jirta sida looga dhaxbixiyo kale adiga iyo nasabkaaga intaad marto saasaan kaaga dhaxsiibi buuda adoon waxba ku gaarin baan banaanka ku dhigi sidii uu sameeyay ficlan uu ka dhaxsiibay markaad gabaygiisa fiiriso muslim iyo qeyrkii baa keenay iyo kutubta siirkuna way keeneen dhanka hooyooyinku ka galay meel nabigu maraba agta ma saarin zaanada tilmaamay Aisha waxay tiri radiyallahu ta'ala anha rasuulkan maqlay buu sayyidi sallallahu alayhi wasallam oo Xasan kule inna ruuha al-qudus la yazalu yu'ayyiduka malakul jibril kama zuulayo inuu ku taageerayo ku garab taagan hawshan iyada ma nafahta 'anillahi wa rasuulihi inta ilaahi iyo rasuulkiisa difaacayso malakul jibril baa ku garab taagan buu nabi sallallahu alayhi wasallam markaas waxay tiri hadana rasuulkan maqlay sallallahu alayhi wasallam oo yire waa markuu Xasan hawshiisii dhameystay oo gabaygii tiriyay oo madaafiicdii tuuray kadib ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka arintii ka hadlay wuxuu yiri hajaahum Xasan fashafa washtafa bu nabi sallallahu alayhi wasallam alalay Xasan hawshii waa qabtay ya fashafa muslimiintiina waa caafiyay hada lagu qanco oo lagu fayoobaadu bixiyay washtafa asaguna waa ciil baxay isagina waa ciil baxo waa noolaaday muslimiintiina wuxuu ka saaray culays badan oo haystay buu ka saaray sidaas nabigu sallallahu alayhi wasallam ku amaanay Xasan marka gabaygiisu waa dheer yahay oo qaar kamid waxa keenay sahih muslimku ku yaala xadiidkan siyaaqadan dheer hadda waxa ku wariyay muslim baa ku wariyay fi sahihihi hada marka shicir badan oo bahr waafirka abu keenay oo ka bilaabanaya hajawta muhammadan fa ajabtu anhu wa 'inda allahi fi dhaka al-jazaa'u hajawta muhammadan barran hanifa رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء هل كاسو قبي كقلي قبي دير وقبي يسي قيب كمدا قيب كمدنا قابك ونبي وقد حساري نسب كيسة وكوي كلا أوير قريش قبايش هذه كلماله كلا يكون كلا كتسناينا أيضا أبيات كلا كتمد وقتك أنا قد حدينا هذا وفسرنا مقصود كأن كرعان أنت كدي وحن كوضنا معناها النبي قد يباتم قاري صلوات ربي وسلام عليه ربي جيبنا الدفاع يا معناها يضماها حد جدوا كل لجوس سميني هلا قام سماها وين لقيت شواب وين لقيت شوابه تاصل جد لنا قلب كلو إن أنت المعنى أوبها بوحيه نبي صلى الله عليه وسلم إذا بدرده يفلقات ضد الغلاك عيو لين حكى لمركات كفيرس مراها كدلنا يا مركات فيرس سيد قالوا قوتان iyo
ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhalinayo markaad fiiriso marar fara badan waxay noqonaysaa rubba darratin naafica marar badan waxaa jira wax dhib u muuqda laakiin ilaahay uu masaalix fara badan ka keeno oo midho fiican oo aad u fara badan ka dhaliyo haddaynu taariikhda dib u raacno dhacdooyin waaweyn oo waxaynu helaynaa muslimiinta culays badan ku ahaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka keenay faa'iidooyin iyo midho aan marnaba la fili karin waxaa ka mid ah midna haddaan tusaale u soo qaadanno been abuuradkii nabiga lagu sameeyey gurigiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh soo garanaysaan xaadiisatul ifki oo nabiga reerkiisii iyo qoyskiisii lagu been abuurtay oo la isku dayay in la wasakheeyo oo nabiga sallallahu alayhi wasallam bil ku dhawaad taqriiban guriga nabiga sallallahu alayhi wasallam qasnaa oo nabigu la warbahaarsanayo la rafaaday salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhacdada noocaas ee dhowr iyo 10 aayadood oo quraanka ka mid ah suuratu nuur ilaahay kaga hadlay soo dhacdo murug lama soo arrin xanuun lama ahayn xaasaskii nabiga mid uu ugu jeclay Aisha in la yiraahdo muxuu ahay zina iyo xumaan bay samaysay ninka reerkiisa hadii la xumaan bay samaysay isaga ceeb kuma dhacdada markuu ilaahay ka hadlay muxuu yiri la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum shar inay idin tahay u malaynina khayr bay idin tahay warmane maxamed oo gurigiisii la galay see khayr ku yahay mane maxamed intaas la rafaadiyay khayr ku yahay bal huwa khayrun lakum dhankee weeye midhaha ka dhashay marka la fiiriyo maslaxo weyn baa ka dhalatay bal huwa khayrun lakum dhowr iyo 10 aayadood oo ilaa maanta aan akhrinayna dhacdada ku yimid maayarba ummul mu'miniina Aisha radiyallahu ta'ala anha ba todobada soo korkooda laga soo bariyeelay oo ilaa maanta aan akhrinayna baraadeedii aan akhrinayna sidaas daraadeed maslaxada ka dhalatay munaafiqad fara badan baa soo baxay oo isqarinayay maslaxada ka dhalatay marka la fiiriyo la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum wa dhacdo درس أي نكا قادرين وحكم إذا مثلا صحابة رضوان الله عليهم بقال الذي يكون شأن مكة وكوة شوقي واي وكوة الله دبي وكوة الله لاي وكوة الله عدادي وكوة محوهي نوع والبدباتوين لو جست وكوة دول كي مركز شوقي واي كه جرودي وكقحي وأرض الحبشة أقحي عليس وين بأهي بعد عليس لبأهي dhibaatooyin baa muslimiinta gaaray jid bay galeen dhul qurbaa bay tageen ayna waxba ka aqoon rafaadka soo dhan markay mareen dib baa loo arkay laakiin waxa ka dhashay hijradii saxaabada in wadan dhan ninkii madaxda ka ahaa uu soo islaamo sooma bal huwa khayrun lakum dhacdo kale oo sidoo kale nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh magaalada Makka lagu dhibay muddo dheer buu sabrayay adkaysanayay waa la dhibay dilkiisa la isku dayay waa hijrooday magaaladiisii dhulka uu ugu jeclaa uu ku dhashay tolkii buu ka dhaxbay magaalada Madiina aad dhibaato culus bay haddana ma dalika Madiina markuu tagay nabigu sallallahu alayhi wasallam hijradii nabiga iyo dhibaatadii Makka loogu geystay maxaa ka dhalatay dawladii Madiina ka dhalatay awoodii Madiina ka soo baxda ka dhalatay diintan iyo dhulkay gaadhay oo dhan baa ka dhashay waxa loo arkay waxoogaa inay dhib tahay laakiin ilaahay baa tabaaraka wa tacaala midhaha ka dhalay waxa kamida maalan heshiiskii Xudaybiya nabigu galay sallallahu alayhi wasallam 10 sano xabad joojin ninkii xagga naga ka yimaada soo celinmaysaan ninkii idinka soo islaama waa idin soo celinaynaa saxaabada culays badan ilaa culaysku wuxuu gaaray heshiiskaasi sida dareenkay ka qaadeen Umar waa ka ishayn waay ee yiri rasuulka ilaahay alasna ala alhaqi wa aduuna ala albaatil rasuulka ilaahay soo xaq kuma sugnin oo cadowga nagu soo baatil kuma sugna maxaan dulliga u qaadanayna annaga iska celino maxaan heshiiskan dulliga u galeynaa waa kii nabiga u tagay Abu Bakar u tagay culayska ilaahay waxaad ka garanaysaa saxaabada ridwaanullaahi calayhim markii heshiiskii dhacay oo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam waynu noqonaynaa xoolaha wadeen gowraca amarkiisa wax qaata waa kii loo soo saamay خلاص iyadoo caadi ayna ahaan jirin nabi maxamed oo amar bixiyay in loo kala degdegi waayo ma dhici jir in loo kala degdegi ma dhici jir laakiin wax isdaqaajiyaa la waayo
culayskay arrintu lahayd baad garan dhacdadii nooca ee muslimiinta culayska ku haysay ee muxuu ahay sida ay u arkahayeen ee dareenka ka qaadeen maxaa ka dhashay ya inna fatahna laka fathan mubina fathi weyn bay ahayd ilaahay baa maslaxada ku jirta arkahayay laakiin iyaga umayna muuqanin waxaa ka dhalatay 2 sano gudahood muslimiintu inay 10 goor islaam laabaan ka badan diintii fido nabadgeliyada ka faa'iideysato guri walba gasho raggii ma ka furtay oo marka dambe ma ka qabsan doonaay in badan oo kamid muddada iyada bay diinta soo galeen sidaas daraadeed la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum dhanka marka dhinaca ka akhrido waxa ku soo baxaya rabbigeen tabaaraka wa tacaala markuu wax diyaarinayo adiga dhankaad ka taagan tahay mooy dhinacyo kale oo fara badan bay arintu leedahay akii shaacirku laha ama gabayaagu laha ida arada Allahu nashra fadilatin طويت أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود يعني هدي إلهي فضيلة يوناقا إنو فافيه هدو إلهي الرمو فضيلة يوناقا سو قرصومي الله تبارك وتعالى وحوبا الدرابة مد حاسد عرب كيسا الله درابة مد حاسد وكوك عصان وكو نعب باب اللو أديتشياب فضيلة دي قرصوني دي ساقع بفافين ساقع حماية بوسلية لكن وحوي ورقاسو وحويري ضبك هورك ضبك هوريتانك ضبك هدو سنجير لهين وقوبيو أما كوهر هايو وحكستو للدرسة وكاك دواد هدونا تشيري لهين عودك ودقون كيسا لما الضريمين هدان ضب تشيري لهين صوما عودك مركو هالكايان يا ما وديك بوله ماشي اسكيال انما سو غاري لكن markii dhuxusha lagu dhajiyo yaa soo mehelin markuu gubta la hela macna wuxuu ka wada marar fara badan ilaahay tabaaraka wa taala fadiilada iyo wanaagiya adeeg wuxuu u adeegsadaa alle dad khayr la wayaal waqii xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay tabaaraka wa taala marar badan diinta wuxuu ku xoojiyaa ya ruuxan aakhira aan ku lahayn ruux faajira oo aakhira wax ku lahayn ilaahay baa adduunkan maamulaya sibu wax u diyaarinaya ya dhinac manaad isleedahay meelaad isleedahay war adiga ama dhibaato ka timaada ba ilaahay tabaaraka wa taala khayr ka keenaya wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthar an-nas la ya'lamun ilaahay arrimihiisa isaga ghalib ah sidaas daraadeed ijaabiyad fara badan baa ka iimaan karaya waxyaalo fara badan oo sax dhacdadu iyo in nabiga sallallahu alayhi wasallam loo qast aflagaado waarin xanuun leh waarin loo dul qaadan karin waarin qalbiga ruuxa muslimka uu ka gubanaya hatta faajir iyo faasiq ah waarin muslimiinta dhan ay ka midaysan yihiin hatta faajirkiis faasiqooda kooda xun midkooda wanaagsan waa ka midaysan yihiin laakiin hadana ma dalika jawaanibta iyo duruustaasi aan ka hadlayno ayaa muhiim ah inaynu mulaaxadayno مثلا هذا دو في الصنو سنده iyo mudadii aflagaadadan iyo waxaan socdeen hadaan u fiirsano mira badan oo waxa jira aan dareemi karno waxa kamida مثلا ayagu waxay islahaayeen nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka ku dira saa ku diradoodii waxa ka dhashay in la sii jeclaado soo inay dadkii rumaysnaa iyo in badan oo kalaba ay maxabba siyaada iyo jacayl u sii qaadaan dhankay iyagu u wadeen dhinac kale u fooftay dhankii dhinacaan ahayn bay u fooftay waxa kamid ah faa'iidooyinka ka soo baxay in badan oo muslimiinta kamid ah markay arkaan gaalada xadgudubkay diintooda iyo nabigooda iyo muqaddasaadkooda ku sameynayaan qaar badan oo kamid ah waxay ka heleen darsi ah inay diintooda ku dhagaan oo u laabtaan ruuxan san la yeelayso nabigaagi iyo diintaadi ma isweydiye adigu xageed ka joogtaa in badan inay marka soo noqdaan oo diintii u soo noqdaan oo wax fahmaan oo bay keentay waxa kamid ah mesela in badan oo dacwada islaamka kamid ah inay si aan toos ahayn ba ay dadka ku gaadho aflagaadooyinkan waxa dhacaya mesela
dad fara badan oo nabi maxamed ba aan aqoonin kama warhayn maqlinba ba iclaamka waxay ka maqlayaan sawirra laga sameeyo waa la caay muslimiintii baa ka kacay dhibaatooyin baa ka dhacay war bay maqlayaan waligi waxa laga yaqmaa fi taariikhi inuusan islaamna maqlin nabi maxamedna maqlin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi maalinkaas wuxuu bilaabayaa inuu raadiyo maxamed yaa la dhahaa muxuu la yimid baaris buu galaya akhrin buu galaya markaasuu laga yaabo inay sabab u noqoto inuu soo islaamo ya ficlan way dhacday marka dadka soo islaamaya aad siyarkooda iyo qaabkay ku soo islaameen aad akhrido qaar badan oo kamida islaamkii iyo nabigiisii baa wuxuu gaaray markii hore asagoo la suuro xumeeyay buu gaaray tiba waxay ku bixisay inay baadhi sameeyaan tiba sabab u noqotay inay soo islaamaan waa jawaanib abayaradeene kamida ilaahay tabaaraka wa taala siyaabaha wax uga dhalinay waxa kamida midalan ila muddadii ay bilaabatay nabiga sallallahu alayhi wasallam in la aflagaadeeyo lagu xadgudbo waxa bilowday xamla iyo olole aad u ballaaran oo caalamul islaami ka bilowday oo nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka lagu barayo cidii aan aqoonin la barayo nabi maxamed yuu ahaa taasoo kitaab baa laga qoray intaasoo qanawaad oo maxaa telefishinka loo hagaajiyay intaasoo milyan oo xoolaha baa loo sameeyay intaasoo hay-adood baa loo sameeyay hay-ad caalami ah oo muslimiintu leeyihiin مثلا hay-ad weyn oo caalami oo la yiraahdo اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء وهي عالمية وين وحكم إذا مثلا الهيئة العالمية للتعريف بالرسول ونصرته هيئات وين باسميس هيئات كاسي وحي انت بدل لك خطابيان او وركودو كو وجهان يحي ريغلبيدك iyo shucuubtooda عبر يعني iyago maraya meediyaha wasaail ilam baraha yani wax way dadweynuhu isugu yimaado internetka website-yada yani facebooka youtube-ka muxuu ahaay telefishinada reer Yurub iyo dadkii aan nabi maxamed aqoonin nabi maxamed la baro salawaatu rabbi sallallahu alayhi oo juhdi weyn la geliyo oo tijaartu xoolo badan ku bixiyaan oo hay-adka maanta ugu dhaqaale badan ay kamid tahay hay-adka barnaamijka ka shaqeeya xagee ka dhalatay waxay ka dhalatay yani wax weeyaan waa arin rad ficli ka yimid way xadgudubka nabigeena lagu sameeyay salawaatu rabbi sallallahu alayhi waxa intaas oo dhan kamid ah oo iyadana runtii ahmiyadeeda leh in badan oo muslimiinta kamid ah ayaa waxa lagu kediyo lagu khalday wax la yiraahdo beenta gaalada iyo reer galbeedka wax la yiraahdo cadaalad tasaamuh hal is-ixtiraamo hal is-qadariyo warkaas dad badan oo muslimiinta kamid ah dhagahooda lagu shubay markaasay ka soobeen siraaca iyo xaqiiqada jirta baa ka qarsoontay hadda markay bilaabatay marka wax walba daaha ka furmay oo daahi ka qaadmay xaqiiqadii banaanka wala soo baxday cadaawadu soo baxday xadgudubku soo baxay diinteeni islaamkii nabigii muqaddasaadkii waxba loo rabaynin soo baxday markii la yiraahdo warkadaaya xorriyatu ra'yi waa warkadaaya dimuqraatiyo waa ya xaqu saxaafa waa muslimiintii waxay ku baraarugeen aleelahay waxaan la leeyahay hal isla noolaado iyo hal isdhex galo ya ay hal wada dhaqmo iyo xuquuqda iyo wax laga hadlay inaga leeyna sirahay wariyaa dabin baa leeynoo dhigay qaar badan oo kamid ah sabab ay ugu noqotay inay lucbada iyo ciyaarta si fiican u fahmaan ilaa dadka qaar waxa jira moogtay qalin waaweyn far waaweyn ilaa wax loogu qoro wax ma fahmaan sababa ilaahay baashu hoostiisa ka bilaabato wax ma fahmo qaar badan marka qadayadana waxay dareensiinaysaa ama ay ku abuurtay xaqiiqadu inay tahay ciyaartu inay ka weyn tahay hadalladan iyo waxan beenta la isku sasabay arintu waa ka culus tahay maxay aniga haddaan muqaddasaadkayga la ilaalinaynin oo nabigayga lagu xadgudbahay markii lagu xadgudbay waa xurriyad oo diintayda lagu xadgudbay waa xurriyad oo damiirkayga lagu xadgudbay waa xurriyad adeerta war badan noolaashaad ka hadlaysa maxay hal isamaxmaad ka hadlay hal iscafiyaad ka hadlaysa maxay yani waa shayga ugu fudud ruux isweydiin karayo mas'aladaasi marka runtii waxay keentay wax laga yaabo dacwadu
laga yaabo 20 sano haday jirto inaysan keenteen yani wax badan baa ilaahay ka dhaliyay tabaaraka wa taala xikmad rabbi way tabaaraka wa taala waxay keentay sidoo kale oo ina fahansiisay waxa la yiraahdo hadda saan tilmaameynay isdiwaajiyatul macaadiir ladal gharb reer galbeedka iyo macaayirtooda mawaasiintoodu inay tahay mawaasiin aan sax ahayn oo ku salaysan la jiifiyana muxuu ahaay la jiifiyana banaan la jiifiyay banaan la joojiyana banaan reer galbeedkani waxay dadka ka iibinayaan inaynan ahayn xaqiiqo qiyam rasmi ah inaysan lahayn bay ku tus midaal baan soo qaadan karaa ummad kasta oo caalamka kamid waxay leedahay waxyaalo muqaddas ah oo aan loo gacan dhaafin waxyaalo muqaddas oo la taaban karin dastuur ha noqdo shakhsiyaad taariikhi ha noqdo diin iyo aqeeda ha noqoto ummad waliba waxay leedahay limit waxa jira cid gali karta ayna jir saqfi aan la taaban karin bay ummad walba leedahay طيب qaanuunkaasi laakiin uu yaala qaanuunkaasi wuxuu u yaala markay qadiyadu khusayso muslimiinta cidaan ahay laakiin markay qadiyadu muslimiinta khusayso ilaa meesha ugu dambaysa waxba loo reebi maayo almithaal baan idinsiinaya marka hadda la yiraahdo madaxda reer galbeedka iyo mustaqafiintooda iyo aqoonyahankoodii markii la yiraahdo war hal bilyan iyo nis muslimiin aba damiirkooda dhaawacaysan ya dhaawac u geysanaysa waxay ku jawaabeen taqaana adeer waxa weeye xurriyatu ta'bir xurriyatu ra'yi xuquuqda makfuulka waxa kamida dimuqraadiyaduna keenayso in ra'yiga xor loo yahay khaasatan saxaafadu jariidadu waxay qorayso telefishinka wax laga sheegay idaacada wala dadku waa xor annaguna ma control karno طيب هل سؤال بعد سويتين كرتا waxa lagu yiraahdo waxa la yiraahdo lagu magacaabo maxraqada yahuuda lagu magacaabo ama holocaust la yiraahdo holocaust oo Hitler iyo Naziyiintii ay sameeyeen oo yahuudu intay bomboonisay ka faa'iido xadadka asalahan uu jira laakiin waa la bombooniyay waa laga faa'iideystay nimankana reer galbeedka ku sanduleystay waa dhacday oo taariikhi ah diinna ma aha aqeedana ma aha waa dhacdo taariikhi ah dhacdada taariikhiga holocaust ama maxraqadii reer galbeedka madaxdooda iclaamkooda telefishinadooda suugaantooda jaraa'idkooda arha ka hadla waa xor هذا الحر بنا الرأي كنا حرنا كهلا وكاس ما بكهلا كران كوي كهلينا أنت محكمة الله لفولي بواحد لقولي معاداة السامية وحلا الله وطن السامية ذات علتي ما لي كلام بوايه ما لي كلام بوايه والرجال بيضو هذا الرجال ده لتشيفي أنا بنان لتشوفي أنا بنان نبي محمد الله عينا وحرية الرأي دين الإسلام كإن ما لقى عنا وحرية الرأي هل بليون إيه نص مسلمين تكملنا إن قلوب تضل الضوئية ضمير كودا وحرية الرأي هوليكوست إن انتابننا ما هو معاداة السامية هذا بالأسبوع فجية مقاييس ترى قلبيتك أدوك يقول رقم من قايس وحنا إلهي مهدئة فإذا وجوه وين السندان دنبلك قاري وحا كمدا قيمك أي كفاني تشين رجال قلبيتك إن يجوا دميين قيم حقوق سنان عدالة وحي أي كفاني تشين بمال بميت كتقلصين مركز زمان تهر وردنك وحو قاري حقيقة دي سؤال تهي ولا كلا حب بدني هاي مويه هذا هذا الله يصير ماي ربنا قيمة بقوليه هاي تمرادية تشيرته حقوق ما تشيرته ضدك عدالة ما تشيرته وركاس وهورا الإسلي تشري لكن هذا كاركي سوا قد كاركاسي وهورا الحقي وحق مكاسي تبدأ بوصع عن ماي مركا حرية تعبيرنا معها حقوقنا معها ديمقراطية هذا معناها هذا تاين مقدسات كاللجوء حد قدبنا نينك مسلم كديمقراطية كهاللية عيب كتاي
dimuqraadiya hadday tahay in nabi maxamed la caayo oo islaamka la caayo oo muqaddasaadka lagu xadgudbo fabi'sat dimuqraadiya dimuqraadiya ceebteedii waxay ka mid tahay iyo qashinimadeeda ay ka mid tahay alkayl bi mikyaalayn baa la yidhaahdaa waxyaalaha noocaas oo kale markay isku qarinayaan arrinta iyada ah waxyaalaha faydmay bay ka mid tahay iyo duruusta muhiimka ee muslimiintu inay fahmaan u baahan qiyamka saxda ah waa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu la yimid darsi gooniyaan ka dhigi doonaa laakiin hadda soo laguma eedaynayo nabigeenna sal alay wasalam oo dacaayadan iyo aflagaadadani kuma socoto nabi maxamed sal alay wasalam naxariis laa wuu ahaa sooma waxbuu burburin jiray waxbuu khariib jiray soo saa kuma socoto taariikhda markaad dib raacdo iska dhaaf ummadiisa iyo inta atbaacdiisa cadowgiisa see nabi maxamed ula dhaqmi jiray sal alay wasalam suwar iyo amthila waxaan helaynaa xaya oo reer galbeed iyo qayrkood toona taariikhdoodana aan soo marina doonin waana darsi si gooniya aan u taaban doonno insha allahu tacaala habeenada soo socda samaaxatu muxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh maca acdaa'ihi saamixidii iyo qaabkii iyo dhaqan wanaaggii nebi maxamed sal lla lay slam cadowgiisa uu la dhaqmi jiray waa duruus si gooniya aan u bixin doonno oo aan ka hadli doonno maxaadara gooniya ka caqidi doonno biidn illahi tabaaraka wa tacala iska dhaaf ayaga xataa taariikhdoodii horeyna gaari karaynin rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalam saas daraaddeed qiyam iyo wanaag iyo cadaalad iyo xuquuq iyo xurriyad waa tii nebi maxamed la yimid waa ta qur-aanku tilmaamayo nebiga axaadiistu tilmaamayso ummaddana ay ku soo dhaqmaysay muddo dheer laakiin ta reer galbeedku waa musayaf waa faalsa waay feeg waay waxba kama jiro tajribo yar markay gashay fashilmaysa tajribo yar imtixaan yar markay marto ayada dhanba waa kala daadanaysa leanna wax la dhoodhoobay markii horeba ahay arrintaasi waxay tilmaamaysaa oo siraacaasi uu tilmaamayaa ama yani wax way muujiyey sidoo kale xiqdiga iyo cadaawadda islaamka iyo dadkiisa loo hayo oo nebigiisa loo hayo waana kan rabbi tabaaraka wa tacala qur-aanka kariimka uu ku tilmaamay qad badat albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfi suduuruhum akbar cadaawadday qabaani afkooday ka muuqatay waxay qalbigoodu qarsanayaase ka weyn oo inta qalbiga ku jirtaa ka weyn xumaan mooye marka samaan ka filimaysid way macnaha su-aasha isweydiintana waxay tahay marka maxay tahay waxa ku bixinaya inay islaamka caayaan oo nabigiisa caayaan aflagaadeeyaan inay isku dayaan maxay tahay dawaaficda keenaysa iyo asbaabta keenaysa هذا كده haddaba maxay tahay asbaabta ka dambaysa ama waxa ka dambeeya ee riixaya inay soo noqnoqoto oo shaqo ka dhigtaan maangaabka reer galbeedka iyo wixii la midka ah in ay nabiga ama diinta islaamka inay caayaan aflagaadeeyaan karkateero iyo sawirro xun ka sameeyaan maxay tahay asbaabta ku kalifaysa daafica ku riixaya muxuu yahay waxaan dhihi karnaa dhowr arrimood baa arrinta iyada ah sababaya ta koobaad weeye wax weeye alkhawf min alislaam waintishaarihi fi alcaalam alladii yuhadidu almasaalix algharbiyata aldaalima limujtamacaatiha wa shucuubiha cabsi waxaa ku jirta nimankan oo soo kordhaysa faafitaanka islaamka ay ka cabsanayaan waa diin si walba haddii loo dacaayadeeyey oo si walba loola dagaalamay oo military ahaan iyo ciidan lagula dagaalamay oo dhaqaalo lagula dagaalamay oo dadkeedii iyo dalkoodii la burburiyey haddana waa diinta adduunka ugu faafid badan waa qaladu ka war diintii faafideedii bay marka xakamayn la'yihiin meel kale iska dhaaf afrika iska daa waddamada asalku waa iyada iska badaa afrikadan la isku haysta iska dhaaf yurub dhexdeeda waa diinta ugu faafid badan waa cabsi marka waxay qabaan diintani qaabkay u faafaysay u socoto 30 sano 20 sano soo socota yurub waxay isu bedeli doontaa aqlabiye fara badan oo muslimiin inay soo baxdo majority yani tira aad u badan inay soo baxdo cabsidaasi marka ha laga hortagaa timid see looga hortagaya
waa in dadka iyo la isku diro diinta islaamka inta badan ujeedadu wax weeyaan shucuubteena islaamka aan ka xakamayno diintii bay galayaan aan ka ceshano seen uga ceshanaa waa inaan warbaahinta u isticmaalo iyo miidiyaha in islaamka la suuro xumeeyo si dadkeenu uga cararaan ma la fahmo dhibka ugu weyn marka gudahoodu ka haystaa ciyaartu meeshay ku wajahan tahay waxa weeye yurubiyaanka islaamaya iyo ameerikaanka islaamaya ee diinta soo galaya see looga joojiyaa soo gelitaanka diinta cabsidaasi waa mid markaasaa waxay la gashay waxaan kaga hortagi karnaa inaan cayno inaan aflagaadayno inaan suuro xun ka bixinno dadku sidaa kaga cararaan laakiin ma suurowday waaye ya ma suurowday maya sax waa dhici kartaa waxoogaa inay yara hakiyaan way dhici kartaa dad waxoogaa soo dhawaa inay yara fogaadaan way dhici kartaa lixaddi ma inay dhimaan laakiin diin ilaahay wato ya yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaahihim inay ilaahay nuurkiisa fidahaya faafaya demiyaan bay rabaan waya'ba allahu ilaa an yutima nuurahu ilaahayna waa diiday ilaa inuu nuurkiisa dhammaystira mooye gaaladu haba kahatee iyagoo kahanaya oo dagaalamaya oo rafanaya buu ilaahay dhammaystiraya tabaaraka wa tacaala taa horta waa qodoboo rafashadan iyo caydan iyo aflagaadadan iyo cantarbaqashkan waxaa ka keenaya cabsi ay diintii ka baqayaan diintii islaamka ka baqayaan waxaa qariib oon la yaabay markaan dad yurub tagay oo soo arkay markaad akhrido dadka soo islaamaya ilaahay amarkii waxa u badanoo soo islaamaya waa dumarka ya meesha u badan ee diinta islaamka ka dacaayadeeyeenna waa dhanka dumarka soo ma diinta islaamku dumarkii bay ku seexatay xuquuqda dumarka ma siiso afar bay ragga u fasaxday yani wax iyagaa wax furahay meherkii muxuu ahaay dhaxalkii baa lagu yareeyey war dumarow diinta islaamka waad ku dulmantihiin soo laguma akhriyin haddana dadka ugu badan ee soo islaamaya waa dumarkii laduu sidhi ma aha xataa dumar jaahilaadu kuwa aan waxba aqoonin ma aha dumarkii brofesorada ahaa jaamiciyaadka baa soo islaamaya diinta islaamka soo galay waa cajiib soo ma waa qariib soo ma waa wax la yaab meeshii iyagu ay tarkiisinayeen baa u badan oo diinta soo galay ee dacaydoodu u badnayd ee ugu talagaleen inay diinta ka fogeeyaan qodobka labaad waxa weeye ama sababta labaad ee keenaysa xadgudubka noocan ee socda muslimiinta iyo dacfigooda waa sabab ra'iisi ah tawardarrada muslimiinta haysata oo ay keentay inay diintoodii ka fogaadeen mastarkii xooggoodii awoodooda inay ka durkeen kadibna inay sunno ilaahay ku dhacday daciifeen dacfigaasi wuxuu keenay inay muqaddasaadkooda lagu dhiirado sabab waaye وإلا markay muslimiintu xoog lahaayeen waa awood lahaayeen gaaladu meel kasto ay joogan waa ka baqi jireen inay muqaddasaadka diinta islaamka meel kaga dhacaan bal gabadh muslimada xataa inay dib u geystaan waa ka baqi jireen marka dacfiga muslimiinta iyo marxalada ay hadda marayaan waa sabab asbaabta kamid asbaabta waxa kamida ta'thir al-lubi al-yahudi waxa jira lubi yahudiya oo reer galbeedka sinaacatul qaraarkooda inta badan saameyn ku leh mareykanka faransiiska yurub oo dhan isku dar lubi yahuudi waxa jira iclaamkana gacanta ku haya dhaqaalahana gacanta ku haya saameynna ku leh madaxdoodii iyo dawladahooduna inay raali geliyaan ay tahay lubiga yahuudiga ah in badan qayb muhiim uu ka yahay sawiradan diinta meel yani aflagaadadan iyo sawiradan diinta islaamka lagu caayo rasuulkeedii iyo diinta qayb muhiim ay lubigu ka yihiin lubiga yahuudiga bal sida xaqiiqada waxay tahay suuradii ugu horeysay karkateerkii ugu horeeyay ee laga sameeyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam lagu caayayo waxa samaysay waxa laga sameeyay meesha la yiraahdo دربيغا مسجد إبراهيم الخليل oo ku yaala Madiinatul Khaliil
liawwali marra sawir xun la sawiro halkaasay ku sameeyeen kadibna waxaa soo qaatay oo bilaabay jaraa'idka iyo majallaadka reer galbeedka filmo inay ka sameeyaan sawirro karikateera ka sameeyaan ayagaa markaa bilaabay ti Denmark Holland filimkii muxuu ahaay Mareykanka yani wax way jariidadan oo markii muxuu ahaay labaad mise saddexaad ah wahaakada aafadu marka wax way ta'thir aan caadi ahayn iyo saameyntaasina ayadana waa mid meesha ku jirta ujeedayna leeyihiin luubiga yahuudiga ku faafsan Yurub iyo Mareykanka inta badan waxyaalahan taxriikinaya dhaqaajinaya iyaguna ujeeday kale ujeedooyinkooda waxa kamid ah shucuubta reer galbeedka in islaamka laga horgeeyo ayaga iyo muslimiintana fitna la dhaxdhigo laana ayagu markay muslimiinta iyo shucuubta reer galbeedku isku fakadaan ayagu banooniga banaanka ka daawanaya ujeedadoodana waa gaarayaan in horta dadkan la isku imtixaano qoorta la isu geliyo mujtamacaadka reer galbeedka iyo muslimiinta ayaguna banaanka ka istaagaan oo banaanka ka daawadaan danahoodana ka fushadaan waa qodobka labaad waxa weeye Yurub waxa aad ugu soo kordhaya waayahan dambe shucuubtooduna ay garawsanayaan dulmiga iyo xadgudubka Israa'iil ay ku wado Filistiin ay ka wado tasarrufaadka waxshiga iyo xadgudubka garawsigooda ayaa waxay ku soo kordhaysaa shucuubta reer galbeedka hatta ka hor taqriiban 100% dhinac baa la ah laakiin hadda markaad wasay wax isu bedelayaan fiiriso durba waxa bilowday shucuubtii inay ku daqdiyaan madaxdoodii war waxan meesha ka socdo waa dulmi wax loo dul qaadan kara maaha wax loo adkaysan kara maaha ilaahay waxay gaadhaysaa baarlamaanada far badan oo hadda reer Yuruba inay yiraahdaan muxuu ahaay waa in la ictiraafo muxuu ahaay dawladda Filistiin la ictiraafo dawladaha qaar kood inay ku dhawaaqaan bayna ictiraafaan xagee ka iimaanaysa ma taqaana ya waa ta'thir saameyn shacabka ka iimaanaysa dareen waxa jira inay qadaayaad fara badan soo fahmayaan shucuubta reer Yurub inay soo fahmayaan oo wax badan isbedelay waxay ka xuyeen marka luubigan yahuudiga wuxuu ka hortagsan yahay fahamka shucuubtaasi ay fahmayso xaqiiqada jirta in indhaha laga jeediyo indhahan soo jeesaday shucuubtan soo jeesaday in indhahooda marka la jeediyo kiisas kaliya barnaamij kale lagu mashquuliyo Israa'iil iyo waxay ku sameeynaysana laga jeediyo la yiraahdo maxaad Israa'iil ka hadlaysaa khatar ka weyn baaba idin haysatee Paris baa la weeraray oo muxuu ahaay New York baa la weeraray oo London baa la weeraray war cadow weyn hal cadow baynu leenahay ya halka cadow muxuu leeyahay islaam baa cadow inoo wada ah halka aan ku jeesan laakiin waxoogagan anagu aan sameeynayno intan indhaha ka jeediye khayr Allah idin siiyo xaq u jeesan waxa muhiim inaynu fahanno ciyaarta inaan fahanno muhiim mushkilada ina haysatahay hadaynan waaqica fiqigiisa iyo fahamkiisa hadaynan haynin marar fara badan waxay saameynaysaa qaabkan u tasarrufayno oo waxa inagiiba waxaan galeynaa fakh iyo dabin laynoo dhigay baan ku daadanaynaa inagu xagaajiye isle baa waxaan galeynaa meeshii la rabay baan galeynaa madaxa la galeynaa sakal laynoo hagaajiyay baan markaa qoorta la galeynaa iyadana waa ujeedo kale doonay inay xaqiijiyaan inay indhaha xagga u jeediyaan siraacuna noqdo shucuubta reer galbeedka iyo muslimiinta iyaguna barnaamijkoodii laga jeesado ayadana waa qodob kale leeyahay kadalika waxa la mid ah jaaliyaadka muslimiinta ee Yurub ku nool oo tiradoodu aad u badan tahay tiradooduna kordhayso ayadana inay cadaadis la saaro waa ujeedada iyagana ay leeyihiin luubiga yahuudiga oo uu doonayo inuu ka dhaxelo arrimaha noocan oo kale iyo wixii ka dhalanaya tasarrufaadka ka dhalanaya intaas oo dhan markaynu fahanno waynu fahanno barnaamijku inuu dhinacyo badan leeyahay sooma aynu fahanno meeshan inay ciyaariyahano fara badan ciyaarayaan ujeedooyin fara badan inay meesha ku jiraan qasad fara badan in laga leeyahay hawshaasi sida u taala su'aasha isweydiinta la waxay tahay annaga xagee baa nagaga aadano masaalixdeennana aan ka xaqiijin karnaa dhibaatada iyo mushkilada jirtana aan ku khafiifin karnaa innaga positionkeena
iyo dowrkeeniya kaalinteenu waa xagee ya mayna wax qarxinaa mayna wax laynaa mayna xujiye burhaan ku dagaalanaa mayna isdiibnaa mayna cararnaa xagee bosishkeenu waa xagee arintu inaga aadanta dhankay inaga jirtaa warso su'aal weydiin lama mise waan xanaaqsanahay aan xanaaq baxno sida aad tasarrufaadkeenu isaga batayba adan aniga ciil baa yahay kadibna anigu waa ciil baxaya meesha ka dhacaysa ka dhacdo ani waa xanaaqsanahay waana ciil baa yahay waa hurgufaya waxaan hurgufaya kadibna ciilkaasi hadduu iga baxo ama hal cadaab ajana aan galo wixii baabay habab wixii rogmanaya har rogmado anigu waa ciil baxaya war ma saas ya masaladu waxay u baahan tahay qaab bay u baahan tahay loo farsameeyo dhacdadu waa dhacday horeyna way u dhacday wayna soo socotaa wax ka daran baa iimaan kara seeban annaga uga dhex faa'iideysan karna ummadaha ka dhex ugaarsanaya biyaha calowga baa nin walba dhankiisa ka ugaarsanaya yahuuda iyo luubigaasi waa ka ugaarsanaya madaxda reer galbeedka iyo qiyaadaadkooda ujeeday leeyihiin hay'ado kale oo badan baa ka dhex ugaarsanaya war dhacdooyinka noocan oo kale annaga aqliyadii iyo xikmadii iyo aqoontii aynu positionka saxda uga istaagi lahayn oon uga faa'iideysan lahayn ma heli karnaa muxuu yahay waa darsigeena habeen dambe insha Allah ta'ala almanhaj as-sahih fi nusrat al-habib salawatu rabbi wa salamu alayhi inta hore waa waaqici fahansiintiisu aha laakiin tilaabooyinkeena la gudboon waa darsigeena habeen dambe insha Allah ta'ala hada billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi